بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku diyaarinaynaa wareysigaas ma ugu talagalnaa wareysi taariikheed inuu noqdo taariikhdaas oo ah dhaxal reeb aan ka dhigano waxaana maanta ku casuuman aad iyo aad ugu mahadsan maamulaha iskoolka Jariima maamula Jaac barnaamij taxaa qof kastoo hal door degmada magaca maamul iskool baan ku wareysanaynaa maanta waxa ku bilowna maamulaha waxaana si toos ah ula socon doontaan page-ka Adoon Media oo maamulaha Abdikheer Xaaja وما سنتي أنا وولي عبد الرحمن ورسمنا وعنداد هندونا كسلوا مامل. magacaygu waa Jaamac Cabdullaahi Maxamed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Jariiban anigu waxaan ku dhashay miyiga degmada Jariiban meel hadda aan ka fogeyn waxaan dhashay sanadkii 1965 waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dhexe iyo sareba waxaan ku qaatay meesha la yiraahdo degmada Cadale dugsiga sare ee Sheekh Axmed Gabiyow iyo mar aan bedel u tagay Jowhar Sheekh Hooyo Boarding School xilligii dawladda jaamacadda waxaan ka baxay jaamacaddii La Foole taariikh nololeedkayga waxaan mar noqday ganacsade waxaan noqday maamulaha iskuulka halkan waan noqday waxaan noqday oo kale oo aan khabiir ku ahay xagga shaqada badda oo aan ilaa heer naaqoodo iyo inaan anigu doon yeesho aan ka gaaray ilaa haddana waxaan joogaa iskuulkan aan joogaa muddo 12 sano ah baan maamulo ka ahay ilaa 2010kii bishii tobnaad baan halka maamulo ka ahay waa mahadsantahay waa mahadsantahay maamule waxaan rabnaa inaan ugu wareegto waqtiga aan noqotay maamulaha iskoolkan iyo inaad adigu CV-gaaga soo bandhigtay aad magaciisay cid kula tartantay saad ku heshay iyo waqtiga aan noqotay iyo inta sano ay haysay ina ayadana nagu wareegtay waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale sidaan hadda idin xusayba waxaan iskuulka maamulo ka noqday 2010kii bishii tobnaad kowdeedii halka waa muddo 12 sano ah sidii aan ku noqday maamule iskuulkan sida garanaysaan waxa maamuli jiray jaaliyadii CC-da oo qurba joogta ahaa oo iskuulka oo burburay oo xilligii burburkii la burburay dib u soo nooleeyay taariikhdu markay ahayd 2000 sanadkaas hadda aan soo xusay oo 2010kii ayaa waxa loo baahday maamule baaritaan badan iyo tartan ay sameeyeen oo ay khubaro ay aqoon dheeraad ah waxbarashada u leh sida Axmed Cali Axmed oo mulkiilaha iskuulka Yamayska iyo Daawad iyo Badda Cas oo Boosaaso ninka iskale ah iyo ninka la yiraahdo Xuseen Daahir Afrax iyo Bashiir Jaamac Kite Sheekh Bashiir Jaamac Kite saddexda nin oo ay u soo wakiisheen halkan ayaa maamula ayagoo raadinaya halkan bay waxay yiraahdeen CV-gaaga CV-gaygaan siiyay baaritaan badan oo ay sameeyeen waxay ku qanceen inaan kaalintaas buuxin karo sida aan maamulaha iskuulka ku noqday waa sidaa maamule iskoolkaani waxa ogsoonayno in badan jiray fac jiray degmada jiray inta jiray intee maamule oo adiga ka horeysay baa maamulo ka noqotay sanadeese iskoolkan la asaasay ama sanadkan horta iskuulkan markii asalkiisa hore waxa la asaasay 1965kii baa dhismihiisa ugu horeeya la dhisay mar haddaanan carrada joogin xilligii dawladdu ay jirtay ma helin iyo ma suurtagelin inaan helo dokumenti aan ka raadraaco cidii maamulayaasha meesha ka soo noqotay waxaan se u soo joogay intii burburka ahayd oo 2000 ayaa halkan la asaasay waxaan xogogaal u ahay walow aan ka shaqayn jirin cidii maamulayaasha ka soo noqotay wuxuu marayaa 5 maamule oo anigu aan u dambeeyo ilaa 2000 Allah u naxariistay waxa ugu horeeyay ninka la yiraahdo Cuursho Warsame Cabdiraxmaan Warsame Cuurshe waxa ku xigay asagana Allah u naxariistay Maxamed Salaad Cabbaas
waxa ku xigay ninka la yiraahdo juqraafi Cabdullaahi Kulmiye waxa ku xigay asagana Allah u naxariistay Cabdulqaadir Cismaan Kulmiye aniga ku sanaha ugu dambeeyo jaamac Cabdullaahi waa maasanta maamulay si fiican ma warantay waxaan kala aragnaa intii aad maamulaha ahayd waxa sheegtay muddo 12 sano inaad iskoolka maamulisay maalinka iskoolkan lagu wareejiyay qaabku ahaa maanta qaabku yahay waxa aad ka bedeshay 12 sano wax un ka xus waa maadsantahay sanadkii 2000 oo iskoolkan aan maamulaha ka noqday ardadii fasalka 8aad fadhiday waxyaabaha isbedelay baan rabaa inaan idin taabto guud ahaan horta ardada dhigata waxay ahaayeen 166 arday baa dhigan jiray dugsi sare ma lahayn dugsi sare waa jiray laakiin wuu baaba'ay ardada 8aad ka fadhidaa waxay ahaayeen 16 arday waxyaabaha la yaabka ah oo aan la kulmay waxay ahayd markii halka aan imid bedelka iyaga lama qaban jirin sumcad darro iskuulku la kulmay awgeed qofkii fasalka 8aad oo aan bedelna waxa la oran jiray adiga shanaad iyo lixaad iska fariiso ilaa jariiban baad ka timide dadaal badan oo aan sameeyay haatan ardada dugsiga hoose dhexe waxay maraysaa 824 arday muddadaad 12 sano aan joogay intaasay kor u kaceen dugsiga sare oo aan aasaasay asagana oo fasal 8aad ka baxay oo form 1 ah form 1 marka aan uga bilaabay aan ku aasaasay alxamdulillah waxa hadda fadhiya lodkii 9aad oo form 4 ah baa fadhiya 8 lod oo horana way bixeen isbedelada kale iskuulkani dayr ma lahayn qaabka hadda uu u sameeysan yahay oo barandooyinka ma lahayn qaybo badan sida hoolka iyo fasalka xiga iyo fasalka hadda aad arki doontaan oo asaguna kombiyuutarka lagu barto oo chicken-ka xiga ayadana ma lahayn alxamdulillah muddadii aan joogay dadaal badan iyo guddiga iyo waalidiinta oo aad ila shaqeeyay waxaan ku guuleystay iskuulkii inaan dayr u helo iyadoo aan hay-ad bixin waxaan ku guuleystay in iskuulkii ballaarto oo lagu daro 4 fasal intii anigu aan joogay oo dadka dadweynaha ay ku daraan hoolka oo mashruuca JBLG la yiraahdo uu qayb ku lahaa qaybna contribution ay dadweynuhu ka qayb qaateen asagana lagu dhisay waxaan aad u jeclaan lahaa sawirkii maalintii aan maamulaha ka noqday iskuulka iyo maantay in la isku fiiriyo haddaad iskuulka dhex martid waxaad ku arkaysaa inuu dhirayn iyo leeyahay maalintaas wax dhirayn ah oo uu lahaa inna hal la ekaatee ma jirin hal geed oo geeskaas ku yaalba wax dhirayn ah ka lahaa isbedelada la taaban karo oo aan isleeyahay iskuulkaasaad ku soo kordhisay waxa ugu qaalisan in ardada Puntland ay la tartamaan ardada iskuulkan ka baxda in jaamacadaha markay tagaan ay sharaf ku leeyihiin in la weydiiyo xagee ka soo bedelatay goortii macallimiinta jaamacadda uu ugu tago aqoontiisa marka lala yaabo in la yiraahdo iskuulkee ka timid insha Allah inaan kor soconana waan rajaynayaa biidnillah dadaalada asmaysan oo ku meersantiin waan shaqadiina waan la rajaynaya markii lagu dhiibay in ka badan inay samaysay su'aal yardaan ku weydiiyo sanadkee ayay jirin yeelatay secondary ardada ku bilowday intee la kaayeen maanta si ardada ku bilowday magac iyo maamuus ma ku leeyihiin degmada iyo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya oo ma yihiin dad shaqeeya dad muuqda dad iskoolka laftigooda yimaado kormeer u yimaado oo magaciisiyo
oo role model u noqda ardada maanta dhiganaysa iskoolka Jariiban ما شاء الله سؤال أدي ويديسيد سؤال شيء يجو قيمة بدنيد ويجي سؤال شاسي وحان أولى هاي أرضي لطكي يجوه ريبي أو فنفور كبحة وحو أها لبكون يصدح يطبان أفر يطبان وحيا هاي كوب يطبان أرضي كوب يطبان كي أرضي الحمد لله وقال كي هل قفأة oo baaga muudo ah ama aan shaqo haysanin kuma jiro haday jaamacadaha ka soo baxeen kuwa caafimaad bay barteen kuwa macallimiin bay barteen tusaale ahaan hadda qaarkood waxay qof iyo laba ka xus dadkaas aan maanta dhinkii meeshaas joogaan waxaan ka xusayaa hadda iskuulka waxa macallinka ninka la yiraahdo Axmed Cabdisamed aw jaamac ama Axmed Kiishaar sida loo yaqaano xarunta isbitaalka oo hadda ina xigta waxaa ka ah dhaqaatiir ka ah oo kalkaaliyaal ka ah oo ka shaqeeya qofta la yiraahdo Raaxa Saciid Mataan waxaa ka shaqeysa qofta la yiraahdo Abshiro Xuseen Xirsi iyo qaar kale oo badan garacad waxaa ka shaqeeya qofta la yiraahdo Xamdi Cabdisamed aw jaamac gaalkacyo isbitaalkeeda waxaa ka shaqeeya Ubax Hurdahaye alxamdulillah dhamaantood dadkaas waxaan ku ogahay inay shaqeeyaan iskuulka waxay tareen haddaan u imaado saakay oo ugu dambeysay waxay ii soo direen lacag contribution ah oo aan isku qoray ardadii dugsiga sare ka baxday iyo anoo maamulihii aan isku qoray oo aan tiro badnay laakiin hadday isku tagta wax taraysa oo aan ugu talagalay ardayga dadaalaya oo wax baranaya oo waalidkii fiiga u waayay inaan kaga qayb qaadan hadii Allah idmo aan ku daboolo